halkana hadda ku suganahay waa hotel Safari ee magaalada Hargeysa waxaana hotelkani lagaga dhawaaqay garabka badbaadada xisbiga mucaaradka ee wadani garabkaasi waxa hogaaminaya xubno ay kamid yihiin Abibakar Sheekh Cismaan Meecaad oo ku magac dheer Shiina Dheere oo ah gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani uu dhawaa sheegay inuu xilka ka qaaday iyo xogayihii guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdilaahi Urcade oo isaga laftiisana xisbigu sheegay inuu xilkii ka qaaday sidoo kale garabkani waxa kamid ah Faarax Cilmi Geedoole oo kamid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeyn shirkaasi jaraa'id waxa ka hadlay Cismaan Ibraahim Warsame oo loo yaqaan Cismaan Qowdhan gudoomiyaha garabka badbaadada xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu goobtaasi ka sheegay waxa la dameer dabadii ninka degay meel uga tooban buu waayay inaanu noqon maanta halkan nimaadno cadayno oo aanu ma garanaysaa hawshaanu maanta ku jira gallo waxa weeye wax nooga toomoon meel nooga tooboon baan weynay mas'uuliyad baan naga saaran haddaanu nahay taageerayaal haddaanu nahay xisbiyaano haddaanu nahay madaxdii xisbiga mas'uuliyad baan naga saaran inaanu ilaalino shacbiyadayadii iyo karaamadii dadka inaanu ilaalino Cabdiraxmaan dadka caadiga ah waxba kama duwana waxa kaliya ka duwan yahay waa taageeradii aanu siinay 140% shacabka reer Soomaaliland mas'uuliyiinta kale ee garabkani ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay nahayna qaybta ama garabka badbaadada ee badbaadinaysa xisbiga wadani waxaan ku badbaadinaa waxa weeye marka uu hoggaanka ama gudoomiyaha xisbiga uu garab maro shuruucda xisbiga eenu dhiganay ama aanu ku ansixinay shirweynaha iyagii aanu qabsanay ee noogu qoran xeerka xisbiga wadani marka ay shakhsi quraatu baal maro waa inaanu saxnaa xisbigani ma ahin xisbi ciyaar xisbi waxaa naga galay tacab dadka yagii iyo ehelka yagii iyo qaraabadayadii iyo dadkii aanu maxaad ka soo jeednay marya dhiigna aan ku kala furannay si aanu xisbiga u soo saari lahayn tacab baa naga galay waqti baa naga galay hanti baa naga gashay inaanu ka dhaqaaqno oonu nidhaano uun waanu maxay ahaydee warqad buu soo qoray maxay ahaydee magaaladiisa gudoomiyuhu qodobka 7 xeerka xisbiga qodobka number 37 ayaa cadeynaya cidda awood u leh inay xilka iga qaadaan waxaan umada u sheegayaa darhaad wixii uu ku hadlay gudoomiyihii hore Ciro in uu ahaa wax aanu ummadda xisbiga wadani aanu ku metelin wixii aflagaadee hadalkiisa ku jiray oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Siiraayo oo runtii dalkan tacabaan cidina gelin cid gelisana ay yar tahay soo geliyey waxa uu Ciro yirina isagu u gaaray waxaanu tagaynaa insha Allah taala oo go'aanka ku gaarnay inaanu hay'adaha sharciga aanu maro sharcigana ku soo dabaallo gudoomiyihii hore Ciro oo ka tallaabsaday shuruucdii xisbigani lahaa iyo dastuurkii dalku lahaaba Cabdiraxmaan haday la qurux badnaatay in gudoomiyuhu uu noqdo naday isaga afhayeenkuna uu noqdo deegaankiisa gudoomiyaha golaha dhaxana uu noqdo deegaankiisa xoogayuhuna inuu noqdo deegaankiisa Soomaaliland Cabdiraxmaan horta wada aragta masalan habar awal xisbiga umay codeyn inuu Urcade markaa iska tago habar cafaan xisbiga umay codeyn Shiina Dheere iska tago waxa weeye maaha wax bulsho u soo jiidaya xisbiga marka waxaan leeyahay dadka ama bulshada inta danaynaysa xisbiga wadani inuu xisbi siyaasadeed oo xooggan oo ka ahaado wadanka kuna soo dhawaado maamulka wadanka cidda danaynaysa waa inay u gurmato xisbigii wadani
garabkayga hadda waxaa taagan faarax cilmi geedoole waa siyaasi caana sidoo kalena xisbiga wadani saraakiisha ugu sarsareeyeen ka mida faarax cilmi geedoole Soomaaliya waxay tiraahaa nin shirka dudaysiiga yara arinta imika gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo waliba xogayaha aad hadda la socoto labadaba shirba xisbigu yeeshay labadaba waxay sheegeen inay ka saareen oo ay xubno kale qaarkoodna lagu bedelay sida aad ogtahay labadaba marka maxay macna leedahay inaad garab ku dhawaaqdaan oo ay macna sameynaysaa soo xisbigii idinkama tag runtii xisbigu waa dad isku tegey oo ujeeddo keliya ta lahaa hadday in yari meel iskugu tegto hebel baan erinay tidhaahdo intii kalena meel bay joogtaa oo waxa weeye xisbigu golihiisa dhexe wuxuu ahaa 700 buu kor u dhaafay inkastoon tiro sugani jirin golaha fulintuna aad buu badan yahay haddii wax yar loo yeedho meel la fadhiisto ninka la eriyay hadduu dembiile yahay waxba kama qabneen oo mid cilmiyeysanan ahayn weeyaan waxa lagu eriyey taasina adiguba bedriyow raalli kama ahaateen raallinu kama nihin faarax cilmi siigada aad sheegaysana waad arki doontaa inay siigo weyn yeelan doonto way faarax cilmi geedoole waxa la leeyahay garabkiinan xukuumadda dabada ka riixaysa adiguna waa adigan hadda hogaamiye garabku ku doortay haye maxaad arinta kaga jawaabaysaa taa waxba kama jiraan waxa liya wax ka jiraay ninka xukuumadda dabada ka riixayso desasaayiisa hore loo arki lahaa Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa